السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا هيك صومالي لما أنتي ميل بتشوفتين وان إن السلام يا قبلني ما كركينا هاتو ما أنت وحمرتكوا يوتيوب كيجا ولا شيء لول سيجا لسا أتقاني إلى أن أنتي هي سيسي أو فنانة كندا وتقانين أو كندا دقن marka waxaan horta ku soo dhaweynaya walaashay luul sigaala ku soo dhaweynaya sheekooyin badan baan ayaa naga dhaxeeya aniga iyada dabal waa kan luulay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ضمان وحنا سلام يا شعبك الصومالي الدنيا ما هو بقى كتاجيين. ما شاء الله. كاسة صاحبة إلا هنحرقه ولا كوكي صاحبة يورثها. حسي هرت التلفون بين نفتي سكا قادني ولي يمين ولا فسوى ذاك الله. يا عاول اسمعنا يا سامهم. هذا وادي يجري كندا إيماء وسواحي الحيدنا وصوص على الله صعيا. والله أنا نفسي والله كندا أبي كوكو باين تلاقيني ويني أكثر مني ويني. سرعة كسكو. أنا روح أقول سلام الجلاي قاعد أقول استغنا موتا. عرفت الجلاي. إلا عبد الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله وارنين بقف إلهي وحبه بدو سيء. أنا نفتر كي إن لها الله يبين إني مش جاي وحن جعلها جلان لماذا صوتها لكن تلاقى إنه تقانين يو أمثال لو يقان يسأل نقول روا different أنا وحن جعلها سيدا الدون وينه كله فيلمات وذو كله إن الصومالنا لها تو أيان جعلها لكن دريوين كسحاجة وحباك خلدنا تذكرني بابليس فهمين بقى ها مركا إن شاء الله هديس فهمان أو فرا وضدوبان أي نقدان ده إسكدا مريكاني والله وبالله إن السوق قاعد يكرر الصومالي وواحد دي كله وذا الجليال ويان واحد كتير ميا الله بار لما بار الله ويا هو صدق دعاء. هدين على الصومالي أو كهدين نحن بقدر يدبعتنا يتكو أتصل بدحنا أنا الدوينة في المات الدوينة ويفرق سنة جبنا صحبة. نعم وآمن سنة أبا وآمن سنة. الله باي الله والله الوادي حسوسي وحبان حسوستي موقتها نا حالي مركان شقادك إمدو ما واحد يوتيوب كيارا قلي نانين أول يلي أفر قبلات بقبا أو شن قورتو كجويا قور جويا أنا بحيي أيا يوتيوب يدي أدوك كل جايين سبحان الله أو ما كاسع عالم كهالي كرا شوفتي هذا تقام مالي صح شوفتي دودور تقع دودور بقطع ها وحال دقسي بوبو برتا ريكونفر وايتاس موقتها دقسي بوبو برتا فوت كله كل حدا عامل مس كل حسيبتا waxa inkaas سلامين horta الصوماليات horta waxa waaye iska duumannahay waan iska qaldannahay gabdhaha Soomaaliyeed in wax oo meel ka yimid meel ka socdo aan la aqoonin bay maxaa ku raad dibad baan ka yimid baleeday dadka joogan baa dibad ka shaqeyn kara Soomaaliya horta waxaan ku weydiiyay waaba dhagar qabe sidee buu ku keenay inuu soo dhex istaago baraha bulshada ilaa qofku gartan la waayay maaye hay waa midda maxaa ku raadayay isheeg oo la yaabay waayo waxa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu quraankiisa ku sheegay ninkii waxa la yiri nin dila Allah subxaanahu wa tacaala sheegay
ninki laba nin oo nin dishay mid alla ka dhawaajiyaa baa la yiri moogta marka ninkan in badan buu soo yiri biicabay in badan buu adduunyada soo yiri leefay waxaan sabab saaxiibka xagga qobuuraha laga soo qaadaya ma garan because waxaan maqli jiray dhagar qaba dhulka u dhaqdhaqaaqa laakiin imika sheekadu way isbedesho dhagar qaba isaga dibadda iskeena weeye ninkan horta waxa waaye magacyo badan buu baxsaday oo xagga baasaboorka magaca ugu qoran waa magac faalsa ah oo waa asaga masar oo Nairobi tagay dadka aan laayay oo wariyaasha shaqay wuxuu aaday wadanka Nairobi buu tagay Nairobi uu ka sii duulay halkaas iyo dadka Mareykan loo daabulay oo ayuu ka galay ma garatay oo intaasoo ka dhan muxuu la qaxayay walaal intaas wuxuu la qaxay doosa waa la dhagar qaba Soomaa subxaan allah haye marka ilaahay baa masaakiintii caruurtii ayo ilmeeyeen wariyaasha qaar u dilay ilmeeyeen ilaahay baa oo yeelanaya masaakiintaas baa ilaahay oo yeelanaya ninkii marka magac loo baasaboorka booli magac uu qortay ninkan Sufyaan baa la dhihi jiray wariyaanimada taakay ayaa la oran jiray oo wariyaanimada taakay ayaa ay yaqaanaan wariyo dhan nimankii wariyaasha ahay idaacadda raadiyo muqdisho ka shaqeynayay maxaan ku dhahaa Afrika ka shaqeynayay ayuu xilliyadaas ayay ahayd xilliyada maaragta xasuuqa faraha badan la oo geystay ninkaanu marka adigu markaas ayuu taakaya marka wariyaasha marka taakay yaqaanaan marka waxaasoo dhan uu kiri jiray uu kirayay waxa weeye sabaqadaas aad u dhigayaan bay Soomaali tiraahday ilaahay baa qayax ka dhigay ilaahay baa banaanka ka dhigay waxa weeye ma aanan ogeyn oo anaga maalinta qoyaamaha nalooga soo toosinayo markuu bash siinayo ma aanan ogeyn laakiin haddii uu dhagar qabaha la tilmaamay uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa masaakiinta dhibanta u iliyaan leeyahay ma garat walaaley aan ka yar dhex galo waxaan maqlaayay xalay mar aan sii seexanayay afar buu luuq subax quraato afar wada dilay oo luuq la galay allahoogayeena ku indhacadaga afar qof oo wariyaala oo saaxiibadiya marqaatay leedahay waayo oo ilaahay aniga lursigaala oo aad taqaanid fiiriya aniga lursigaala aad taqaanid meel ka wada shaqeynayno meelina asalaamay ama suxuufa asalaamay kulli dhibka aad fiirsto waa dareemi kartaa inaan aniga geeso Soomaa why not aniga maanta waxaan sameeyo 20 sano ka bacdi 30 sano ka bacdi waa la sheegaa maxaa dhacay dadku ma wada dhimanayaan okay waa la garatay aniga marka halkan anoo fanaanad Soomaaliyeed baan halkan dib geystay gabarban meel ku taagay waan iska tagay 30 sano soo raaxaystay meeshaan doonaan soo raaxad muuqatay waxa way dhiig bilaada ka muuqday hatta qof bilaada oo wadamada raaxada ka yimid hatta midabkiisa Soomaaliya إذا كل وجهه مركا أنت حنا كنت يوشي لا تجيني يوكل تريسعلي ومركا ولا فرت واحد حضير دقات عاس مركا اسمه قرنيسو واحد كود اسمه قرنيسو قفكو أنا إقامة مركا بري مركا السوشيال ميديا عن صوت شغل السوشيال ميديا عن قولتري واحد لا هو واللول سيجالان لاهي ها وناكتي بريجي هوري صدح ناقود سكر لكتان لاهي فانك كودشي فانك درتي بي كودشي وانا شيغا مركا طباس اما افرت سنه كبعدي انا لعلعه ان صبحو وشيغا ما دحاي ها مركا طبعا arrintaanu waxa way wariyaashii Soomaaliyeed intii nooleed oo weyn ka ahayd hal mar bay ninka la yiraahdo taakay ee ka wada hadleen ma garan oo walaal dadku inay dhamaadeen muu moodayay isagu wallahi ninkan wuxuu soo bisiiray asaga wuxuu islahay qofka kama dambayso waayo xalaalo fara badan ayaa maartay dalka Soomaaliya ka dhacay oo magaalada Muqdisho ka dhacay oo burbur badan baa ka dhacay hantiyeed oo nafle maba oo Israa'iil badashay shacabku soo bedeshay afarnaage shacabku soo bedeshay ma shaqeynay walaale afarta gabdhood riski ku jira hadda ma la badbaadiyo maalinta wallaahi billaahi faraa lagu soo taagtaago ay xumadu ku kacdo afarta naagoodu iskor saaraa anaa ku dhahay
nin rag dili maa dumar u daahayo oo Soomaaliyeed ilaahay u gargaaro waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed dunida meel walba aad taagan tihiin waxa weeye ninkaas waa in gacan bira lagu qabtaa baaritaan weyn la saaraa sida aan anaga dumarka Soomaaliyeed haddii aan nahay ama maaragtay suxuufi iyo fanaan ma kala dheera waa walaalo waxaan kaloo aan ka cabsoonaa hadda nimanka wariyaasha oo hadlaayay oo wiilasha wariyaasheenii hore oo intuu dalku jiray jirtay magaranaysaa xukuumadii hore siyaad barre hadlaayay ila waa dad naga waaweyn xitaa ma kasi karna ma garate walaalay hadda waxaan daawanayay xalay iyagana waxaan la yaabay dadkaasoo dhan iyagoo wariyaa oo meel kala jooga oo hadlaaya ma arkin miya isaga mise in aan la aqoonsanayn buu u qaatay mise de dhiiggii baa soo riixayo bannaanka keenay talow wallaahi dabcan intaa tiriba u qaado waa wax maaragtay dhici kara mideeda kale nin qofka markii ilaahay nama tuso dhagarna alla nabadgeliyo subxaana watacaala inta muslima dhagargeliyo waa ninka dhagar qabaxa ah waxa weeye isma qarin karo wuxuun baa sheegi ninkan 40 gabdhood waan horta markiisii hore sida aan ku maqlay oo wariyaal badan aan iswahaysanay ninkan markiisii hore dadka uu leenayo suxuufinimada ayuu aad u jeclay marka boos cadiirista horta weli sheekadan way ku qaraxday ma garan subxaan allah marka waxa weeye waa dad waxaa jira nacam codadkooda ama isteelkooda ama maaragtay alsheegooda hadalka markay guriyo uu sheegayo isteel baa lagu qaataa marka isteelkiisi markii laga heli waaye ayuu ninkan horta nimanka xasuuqay ma garanta ha because waxay ahaayeen wariye caan oo hore hortiis baxay bay ahaayeen oo orari suuqa galay oo dadku jecel yihiin marka isagana marka agtooda waxba kama ahaan karo sida aawadeed buu u dhaqaajiyay hadduu dhaqaajiyay waayo wariye caana ma noqday diliye wariye caana ma noqday wuu baxay maraykan buu tegay afrika u yimid afrika wuxuu ugu sheekeeyey inuu nin aqoon-yahana yahay oo maaragtay dad uu isagu mas-uul ka yahay oo maxay ahayd qolooyinka uu sheegay ismataliso lama taliyo ma ahay mase ismataliso nolosoo wallaahi maxay ahayd talo magac meel buu watay magac buu watay oo leeyahay naxam isu taliso uu yiri ma garanayno aayadoono isku taliye ma isaga isku talinayay magac baxsaday dhaqaatiye baa leeyahay oo wuxuu yiri waxaan nahay 20 ruux oo isku taliye ah okay waxaa la yiri marka 20 ruux ka soo bixi baa leeyahay oo naxam adiga kuwa soo sabta ama dhinaca hore soo istaaga ama garabkaaga soo istaaga wuxuu yiri waxaas waa daboolan waxaa aniga ayaa dadkaas ka mas-uula anaan aqoonyeenkooda anaan hadlaayaba marka waa nin bilaayo dadka darami kartaa maraha la yiri Nairobi balaaya ka dhacday haye marka ninkan horta waxa waaye anaga Soomaali haddaan nahay horta indhaheena way qabteen wayna hayaan laakiin waxaa loo baahan yahay in sharciga la hor keeno dadka dhahaya oo runta markii laysku sheego dadka goobjoogga ah loo kor keeno maxkamadda la marsiiyo oo maaragtay dalka uu joogo waxa waaye waa nin muwaadin Soomaaliyeed waaye Soomaali baana dhiiggiisa leh xiriinkiisana leh diintiisana iskale ma garan marka waa in maaragtay haddoo waddanka Kenya oo isleeya waddanka Kenya ku fakanaysana Soomaali way buuxdaa Soomaalina maxay ugu buuxdaa Nairobi nin aabihii la dilay Kenyana ma celin karto ma garatay sababtoo ah shantaasi dadkay ka tageen soo dunida kuma noolo si wanaagsan hadday xoog noqoto ninkii aabihii dilay uu aabaho dilay dadkii ay dhaleen ama markaa jiray oo yaryaraa hadda intay leegi waa rag waaweyn aad ku leeg adaaba odayoo soo qalloocday imikee waa 28 ilaa 30 jir bay u dhaxeeyaan ha hadday 10 jir markaa ahaayeen iyo wax u dhigmana dee imika rag 40 jir weeyaan soo ma ama 30 iyo xoogaaye may wiilasha ninka la laayo
toban jir baba dheli jirin waa niman yaryar oo xabuura oo dalka usoo baxay ma inama yaryar bay ahaayeen waxa la dilay inama yaryar bay ahaayeen waxa la dilay inamada uu dilo wariyaasha qaarna aan xiran bay ahaayeen waa inamada wariyahoo la dilay shanta wariyahood magacoodaan maqlaayay ma inama aan guursan oo ama imika curteen ama dhalinyaro ah bay ahaayeen miya wallahi ragna way caruur bay lahaayeen ragna caruur malayan baa tahay afar nin horta hal meel buu ku dilay ma garata waa gartay hal ninna buushuu ku dilay oo wuu gaca hal maalin buuna wada dilay miya maya afartu hal maalin dilay ka kalena maalinta ku xigtoo khaarijiye talow misaasaa والله واسك قياسين بسم الله الرحمن الرحيم اوكي والله وارن معجسله waxaas ka sii daran waxaas oo dhan oo la yaabay adoo og oo dhagar qaba laamiga soo istaagay afar naagood ku soo garab taxe ku soo xaragooya inta soo fadhiiso waa sheeko kale wallahi gulaata hada waa arrin maskaxda gelila waa arrin ummadda Soomaaliyeed dunida meel walba inta qaadala ونن محن كلها حالتي نوع كلام إسكتاي وحلو بعيني إن شلون بدو إسخرين وحكوشي مكتب وكل حشري بالمكتب جيس إلهي ضد إلهي وهو إسفناي إلهي مركو كو خشيفة واشي ككله waxaan la yaabanahay afartii dumara oo nin caadi oo ka yimid dhulkaas inay guursadeen moodayay xaaladooda hadda talo maxay dareemayaan Allah gabdhaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigooda uu qaboojiyo kulli waxa weeyo dumar baa la wada yahay anagoo u doodeena haweenka Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeedna every time waxaan iska nahay dulmalayaal qiyaamo naa waxaan ku uri ilaahay xaaladooda ha u qaboojiyo halahaanine oo meesha inay sii taagnaadaan ma rabee mid iyo kabaha dacaskaysa taa ku ordo maxay sugayaan wallahi hadda waxa weeye haddii aan joogi lahayn meeshaas horta waxaadara ayaa ka dhici lahay fakatax aan waa baxsan lahaa acuudu billah والله هذا رأينا فكرين بأوبرامبا وهي وحوي لنا قراءة ومدة الصومالية اللي معناش تيسي لا شيء شيء ماشي وكل شيء ماشي وكسر أسكوي وروض الضلطاي ناقت أحسن حريصة تعرف وحوي كرفندة زاقة كرفندة talabaad afar naagood ku faan markuu isdhahay ma wuxuu u maleynayay kaligiis inuu afar naagood guursaday awooyaashan ba ma qabi jirino kursan arday waxaas loo ahay anay noloshii inta soo gaaray waxa weeyadi maamadii saddexaad uu la guursaday aaba laakiin ilmo normay reebin okay adeerada ama afar iska guursadeen hadda ayay socotaa Nairobi oo jooga rag ganacsadayaal oo aqaana afar bay wada qabaan marka alla juuf ya waxaan ilmo taqaanaa oo qalbiga iga soo gashay wuxuu waxa banaanka keenay uu la qayo la qayadii baa dibadda u soo saartay la qayadii baa dibadda u soo bixiso ilaa farta lagu taagay oo shantii nin la soo qoday laakiin mid baan kuu sheegay shantaan nin oo wariyo kaliya muu dilin because qofaan hore wax u dilin dilaama noqon karo dhiiran oo shan qof iskor dhigi kara hal maalin saacada gudahood afar qof iskor seexin kara waryaa qalbigaas yaa qabo laakiin ilaahay midaan kuugu darayaa horta magaalada Muqdisho berigaas waqtigaas xaaladka oo la sheegayo oo ninkan dadka uu ku weynaayo waxa weeye nin iyo qori iyo gaari iyo qori baa horta waxa laakiin kulli hore uu dadka u gumaadi jiray soo ma qasab waaye waxaan ku iri qasab waaye waxa waaye midda kale ninkan wuxuu wariyaasha u leeyahay waxa waaye shirraadisa uu ku jirtay waxa waaye hadii maaragtay saaxiibka jinna isaga raba inuu wariye noqdo aan wariye noqdo maan dadku dilaa
ها إيمانك أنتو ككينا دلابة واي إيمانك حقويا لا قرآن شو كقدلاي بسم الله الرحمن الرحيم marka ilaahay subxaanahu wa tacaala horta ilaahay ha u naxariisto ayagana allah u naxariisto آمين waxa weeye ninkan anu waxaan yidhi bahalkiibuu ku laqanyooday midaan tag gal kan ka bax gal wuu qombobay naftibuu la yaabay gabashii waa gubtay allahu akbare waxa waa qabrigii baa laga soo abaaraadnama سبحان الله horta abaayo shantaa weriye oo dhintay ilaahay ha u naxariisto iyagii eheladoodaba iyo waalidkood iyo wixii ay dhaleenba inta aynaan ogeyn uu dilayna sidaasoo kale ilaahay ha u naxariisto iyagana gacan ka xaq daran baa dishay isaga dilaaga saxdaa hadduu yahay oo hadalkaas uu cad yahayna ha laga dabageeyo inuu nolosha xaqu ma lahaa saan aaminsanay anugu Soomaaliya waxa yaqaan wax fargelin iyo waxyaale level khamsa fayaqan saxi xeer quraacada la yaqaanay waxa weeye hiilku ha socdo sida aan maqlay afarta wiil oo wariyaha afar jufo ayay ka soo jeedaan laba xataa isku jufo maaha marka waxa weeye waa maqlay waan dhageystay walaalo waxaan laakiin ummadda Soomaaliyeed aan u sheegayna oo baax hoose aan u jeedinayna in laga dhiibiyo waxyaalaha noocaasa oo wariyaasha intay qoralka ku xirtaan iska wareysanayo mataanta caayisa iyo baqdiisa in inta jeebo meeshu taagay jeebada lagu taaga diyaarad degdega Soomaaliya loo saaro ama taasaan aaminsana ama wallahi halkiisa maaragtay maxkamad lagu saaro waayo waxa way dalka uu joogo haddii dambiye qofka soo galay oo dalka Soomaaliya uu ka soo galay waa qasani waa waxa kubaya waa loo baaraya waa loo xirayaa ma garan walaal waan kula aaminsanahay shan wiil oo dhalinyaro intaynu imika ognahay shan wiil oo dhalinyaro ayuu kow ka siiyey weliba xaqdarro uu ku dilay iyo damaaci ma garatay inuu noolaado ma aaminsani qofka bini'aadanka xaqa uu galay xaqiisa ha la siiyo ha la dilo isagana ha loo dilo ha reejufu iyo reejikiina maaragtay ha haddaad leedahay reejufu iyo reejikii baa la dhahayaana jifiya jikaa ma jirto kan jifana ma jecla eedadiisu qoorta ka goynaa hadda xayraanka hadda waxaan ka cabsoonaa xayraanka soomaalida oo dhan kumay qaylin afartan naagood oo mayda in la arkaan ka cabsoonaa u dhaho anaa iga hadhi weyseen maaho kuwana maydkiina waa kan oo haddana meel daran ka bax nacam cidna kama naxaaye naftiina ka badbaadsada ninaan guursaday iyo ninkaaya waaye sheekadaasi shaqayn mayse bal inigoon yaan ila dilin dhagarqabo waa qofkan hadduu dhagarqabana ma laysku halayn karo jufana ma mateli karo cidna ma mateli karo waa dilaa wayaan naftiisa wuxuu u raba hadduu waayu ku dilayaa آمين آمين أباي واصح واسيتها ولا شيء واصح معانته سبحان الله تنا وأفردني تنا وين أفردني وحاسة aniga fan ila ah waxa xisiinayna dhibaatada faraha badan oo maaragta Soomaaliya lagu hayo ama mid hore ama mid dambaba waxa weeye dadka badanka ninka ninkii dhaga qaba dibadaha soo iskaga caaray waxa weeye dadka oo Afrika u soo noqonaya marka soo dawareer been u sheegaya haduu gacantiisa uu ku dibaya waxa weeye aniga hadda kula hadlaya aniga walaashay la dhalatay ayaa wixii deganay magaalada Beledweyne واشي توكو الغرب يعني يلا بحب هذا دور إلى عضب يا برامج قاعدتي
bay ku jirtaa haye bay ku jirtaa meel facebookada oo bay ku jirtaa ma garata meesha ugu way saartaa walaashay nin dagal qaba ah oo maxaan ku raadayay hadda ka hor ku dilay gabar adiga goboladaas dhexe oo gaalkacyo iyo puntland u dhexeysa ayuu gabar ku dilay gabadhii markuu ku dilay waa adigu tarkiga heshiiyey waa uu cararay sacuudi arabiya uu tegey sacuudi arabiya markii uu tegey sacuudi arabiya ayuu waxa la yiri ayuu ka soo noqday waa la soo taariibiyey waa taqaanaa dadka taariib baa lagu qabtaa masaafir ha soo taariibiyey baa waxa la keenay Ethiopia waa Ethiopia ka soo tegay beledweyne uu soo galay beledweyne waxa la yiri berigi hore aabihiis hooyadiis iyo boosna way ku laayeen familkiisa beri deganaa jiray beledweyne uu soo galay haye markuu soo galay walaashay aniga ila dhalata ayay isbarteen haye wala gacan galay walaashay aniga ila dhalata markay isbarteen way heshiiyeen guur bay ku heshiiyeen way guursatay muddo 2 sano markuu qabanay isagaa digay yaa ma walaashayna walaashay aniga ila dhalata makaantayda aniga subhanallah walaal sanadkee bay ahayd waa sida aan noqday waa gabadhii labaad oo dilayo oo xiraya beledweyne maxkamadda hadda aan saar rabnaa fiir abaayo sanadkee bay ahayd hadda 7 bilood baa kasoo wareegay jabi waay astaghfirullah rabadaantii buu dilay rabadaantii shacbaan maalinta shacbaanka islaamka shacbaanka ay hadu dilay rabadaan ay 3 iyo 4 bil ay ka dhimanta lacagta u diray walaashay lacagta u diray lagu dilay subhanallah اللهم ما مقلم والله ما سدابا بسم الله الرحمن warqofka haa laakiin waan ka naxay arrintaas isagoo naag hore dilay uu soo wareegay carabiyo dhulkan uu soo marmaray uu soo noqday walaashaabuu dhakab ku siistay iyadiibu qorta u dheereeyay ayadii baa waxaan ku waa ninkeedii ag jirta ilaa kumadkeedii ag jirta waxay ogtaamana haddii ogaanaya way ku carleen laakiin waxaan u baaqaya gabdhaha soomaaliyeed oo ninkaa dagarqabaha ag jiifa anugu inay ka cararaan taasaan anugu ku baaqaya walaal ileen maanta waxaa ku soo geliyay inaad lifekan ka hadasho ilaa waxbaad ogtay dagarqabo lama gaarsi balanteena igu soo celin alla diyaaradii baan iloobay iyo wad sheekada marka walaashay horta waxaan kuu sheegayaa arrimahan waa qoyskan gabdhahan ayaa isoo geliyey maanta waxaan ku rahaa leebka xanuunka badan leh oo malabkooda ag jiifa waxaan ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad xanuunkaas anayso aan anagu ma soo qabteen walaalaya gabdhaha soomaaliyeed ka carara عرف عن الله إنسية أو بخوح إن لم توقف قفت الله أباي بقصلي كراي أباي معان هرتا وحن ولا إدريسونه سمري إيمان هرتا ولا شاء الله كاسيو إلا وحلا إن أنت كلالك هيا وامحي إلا ولا شيء بعود كذا أكتشفتي كون هذا عبصونا ساعة فرتن مركان إن شاء الله أنتم علموا وهو برنامج الناس نشارك يكون تجاهيو وهو بدو حقنا شرقية دون نربنا نرباسي إن شاء الله واحد نحكمها أنا وبس عشان بدو واحد يحكمها وهذيك حقنا ما قاطع ولا شيء دي أدب ما هتصنت وأنا دريمي كل الكهايستا وأنا كل دريمي arrinta walaasha wallahi waxaan rajeynayaa fiidowgana inuu gaadho afartiis isgarab jiifay ma garatay wadko afartays ag jiifa wadkooda la jiifa
inuu gaadho ayaan ilaahay ka rajaynayaa walaalo de qofkii horta dab kusoo joogsaday baa la yidhi ayaa ka sheekayn kara ma garat marka xaaladda ay ku jiraan waa run luul sigaale waan ku salaamayaa macaanto waayahay abaay barnaamijkan soo xidhaya anigana aad baan ku salaamayaa boqoradayda taasina waxay ahayd luul sigaale oo xanuunka 4 gabdhood oo ma garanaysaa inankaa dilaagayo 5 kor dhigay maanta xanuunkeedaa soo geliyay because walaasheed ayaa arrintan oo kale ku dhacday waxayna ka hadlaysay 4 hablood oo dilaaga ag jiifa ayay u baqaysaa sababtoo ah walaasheed ayaa dilaa kale oo saan oo kale intuu dad dilay soo magaalooyin soo marmaray soo noqday uu dilay walaasheed taasaa maanta soo gelisay igu kaliftay tiri ilaa waa ilaa ilahanay iisoo fadhiiso inaan hadlaan rabaay subxaan allah ilaahow naga hay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa 4 gabdhood ee maxaa dhahday walaalaheena ee masaakiinta ee aan dareemi karin qofka la jooga wadkoodii ag jiifaane haadhe qoor gooye ag jiifaane ilaahay ha ka badbaadiyo intii hore u soo dilayna waxaan leeyahay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo intii ehladooda ahaydna samir iyo iimaan allaha ka siiyo dee 4 meesha qoor gooye ag jiiftowna ilaahayna badbaadiyo waaleedana inaguna isbadbaadiyaana odhan lahaa dadka xanuunka soo gubay oo isagoo kale uu soo maray ayaa maanta lifekan wallahi u kalifay inaan soo galo dhammaan walaalahayga soomaaliyeedna waan i wada salaamayaa xanuunka maanta ninkaas oo dadka qoorta ka goynaya hablihii oo dhan buu saameeyey intii gabadh laga dilay intii sheekadan kale iyo ama sheeko u eg ay ku dhacdo dhan way wada xanaaqsan yihiin wayna wada kacsan yihiin sheekadan waxay ku qaboobi kartaa dilaaga oo lasoo qabto waan salaamayaa shacabkayga soomaaliyeed walaalahay meel walba joogtiin kal iyo laab walaalayaal